السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعانا وناكسن دمان صاحبada ku xiran channelka waa sheekadii wiilkii goobay wadada guusha taasi oo inoo joogtay asiga oo gargaraacay albaabkii ayna ka furtay islaan waayeela oo jirta 80 sano meelaha aksaar muuqaalka si aan u bilowno haddii aan nagu cusubtaana nagu soo biir si aad ugu mid noqotid bahawooyinta aan meeshan ku midownay lawana wadaag saaxiibadaada waxayna weydiisay kuma tahay wuxuuna u sheegay inuu la balansanaa odayga waxay ku tiri odaygu wuu maqan yahay wuxuu yiri odayga ballan ayaa naga dhaxeeyay sidoo u maqnaan karaa waxay ku tiri bil ka hor ayuu baxay waad habsantay asna wuxuu ku yiri ma habsaamin waan soo degdegay waxay ku tiri calaayata xaal hadda wada aan ahayn inaad laabato kuma banaan mar kale ayuu laabtay soo tabaabusheystay wuu soo laabtay mar kale ayuu yimid albaabkii ayuu gargaraacay islaanta ayaa ka furtay waxayna ku tiri wuu maqan yahay waadna soo habsantay wuxuu xanaaqay wuxuuna yiri waa ninaan ballan aqoon u maleema ninkan inuu yahay nin xaakim yiri mar walbana ballanka wuu ka baxayaa waxay ku tiri aan ahayn inaad laabato kuma banaana wuu laabtay mar saddexaad ayuu soo laabtay haddana markii saddexaad ayay ku tiri hadda 4 saac ka hor ayuu aad buu u xanaaqay wuxuuna yiri maaha ninkan nin xigmadyahan ah mar kale ayuu laabtay mar afraad ayuu soo laabtay markii afraad ayay ku tiri u kaadi 4 saac sug halkaas fadhiiso wuu ku imaanayaa markaasuu ku yiri macquul maan sidee u sugayaa 4 saac markaasuu tiri kaligaa lama kulmaysid dad badan ayaa ballan la leh kaligaa lama ballansanide halkaas fadhiiso yarka aad buu xanaaq wuxuu yiri macquul maahan asigoo meeshu iska fadhiistay ilaa wax kale ma sameyn kara meesha ayuu fadhiistay asigoo ooyaya ayuu mar kale wuxuu dareemay in garabkiisa gacan la saaray gacantii ay markuu arkay ayuu fikir u fiirshay mase waa ninkii xaakimka ahaa wuu qoslay wuuna farxay waa caadada ibni aadamka si kasto dhibaato iyo murug u gaarto mar haddii ay helaan waxay u baahnayeen waxay iloobayaan rafaadkii gaajadii dhibaatadii daalkii wax walba xanuunkii wax walba ay soo mareen way iloobayaan ibni aadamka caadada ibni aadam dabeecadda ku abuuran oo Allah subxaanahu wa ta'ala ku abuuray ayaa waxay tahay in haddii qofka murugoodo oo kadib wax ka farxiya helo inuu iloobo wax walba uu iloobaya oo murugtaas kor ayuu u fiiriyey mase waa ninkii xaakimka ahaa aad buu u qoslay xaakimkii ninkii xigmad badanii ayaa la hadlay wiilkii wuxuuna ku yiri wiilyow ii waran maxaad doonaysaa wiilkii wuxuu yiri waan daalay oo dhib badan baa i qabsaday sidii aan kula kulmi lahaa xigmad badani wuxuu ku jawaabay waan ogahay arrinkaas wiilkii yara waxaan doonayaa inaad ii tilmaanto wadada sare ee guusha xigmad badanihii hareerahaaga fiiri iminka waxaad ku taagan tahay wadada guusha laakiin ma dareensanid waxa kale oo aan ku weydiiyey markii aad halkan imaanaysay ma qorshaad ku timid wuxuu ku jawaabay wiilkii haa dabcan haddana wuxuu weydiiyey ma ka fikirtay oo camal ma samaysay wiilkii yaraa wuxuu ku jawaabay haa xigmad badani wuxuu ku yiri oo lacag baad aruursatay wiilkii yaraa haa ayuu ku jawaabay xigmad badanihi ma leedahay aragti mustaqbal dabcan ayuu ku jawaabay wiilkii yaraa xigmad badani waxaa soo fuushay diyaarad oo waxaad timid wadan aadan garanayn adiga oo filanaya inay suuragal tahay in wax kasta dhici karaan wiilkii yaraa wuxuu ku jawaabay dabcan haa xigmad badanihi haddii aanad diyaarad heli lahayn dariiqo kale oo aad ku timaado ayaad raadin lahayd Soomahan wiilkii yaraa haa ayuu haddana ku jawaabay xigmad badanihi haddii aad gaari weydo waxaad halkan ku imaan lahayd lug Soomahan
wiilkii yaraa haa buu ku jawaabay. Xigmad badanihii, waxaad soo fanatay buurtan adiga oon garanayn meesha aad u socoto. Wiilkii yaraa haa ayuu ku jawaabay. Xigmad badanihii, markii aad timid ee aad ku hungowday ee aad dib u noqotay maxaad dareentay? Wiilkii yaraa wuxuu yidhi waxaan dareemay niyad jab. Xigmad badanihii, miyaad niyad jabka u ogolaatay inay ku maamusho? Wiilkii yaraa maya. Xigmad badanihii, kadib maxaa samaysay? Wiilkii yaraa markii hore aad baan u cadhaysanaa laakiin waan fikiray oo aan isdejiyay oo aan mar labaad shaqeeyay, lacag urursaday oo aan goostay inaan ku arko waxay doonto ha igu qaadatee. Xigmad badanihii, oo markii halkan timid ee haddana ay kuu suura weyday ee aad dib u noqotay adiga oo aan waxba faa'iidin maxaad dareentay? Aad baan uga cadho badnaa markii hore oo waxaan gaadhay marxalad aad u murugo badan, taasi oo sababtay inaan muddo waxba qaban kari waayo. Laakiin shaqadii ayaan dib u bilaabay oo lacag baan urursaday, kadibna xaggaaga ayaan u soo safray. Waxaan ka baqayay inaan ku waayi doono sidii aan ku fikirayay ayaa dhacday, laakiin markan waxaan helay rajo aad u fiican oo ah inaan horay u imaado. Markii aan kuu imid ee aan usbuuc fadhiyay ayaa waxaan naftayda ku idhi dhib ma leh, waan ku arki doonaa. Laakiin waxaan ahay bini'aadam, marmarka qaarkood ayaan dareemayay quus, markaasaan ooyayay oohin aad u daran. Indhaha ayaan isku qabanayay aniga oo aad u murugaysan, laakiin indhaha ayaan isku qabanayay xagga Ilaahay ayaan eegayay oo aan lahaa Rabbigeeyow, oo aan xusuusnaa qowlkii Rabbi, annagu ma lumino dadka dadaala ajirkooda. Maadaama aan shaqada wanaajiyay oo aan halkan imaaday oo aan doonayo inaan ninkan qaabilo, markaasaan arkay gacantaadii oo garabkayga taalla. Markaas ayaan ogaaday arrin aad u muhiim ah oo ah in Ilaahay aad inoogu dhow yahay oo uu aqbalayo ducada addoonkiisa. Xigmad badanihii, waxaad soo sheegtay oo dhani waa dariiqa ama waddada sarreynta, adiguna waxaad socotaa waddadii sarreynta sida dad kale oo fara badan, laakiin arrinkaa ma dareemaysid. Waxay la mid tahay ruux ku nool raynrayn iyo sacaado oo haddana cimrigiisa ku luminaya inuu sacaado raadiyo, ku sugan dariiqa ama waddada guusha ee haddana raadinaya guusha. Isaga oo hadalka sii wada ayuu yidhi, waxa aad sheegtay oo dhani waa waddada sarreynta, laakiin anigu waan iskugu kaa dubaridayaa oo kaliya si aad kolba station u marto ilaa aad ka gaadhayso guusha. Markaa anigu waxaan kaa caawinayaa waddada guusha sidii aad ku gaadhi lahayd ee inakeen. Intaa ha inoo joogto qaybtii labaad ee sheekada wiilkii goobay waddada guusha. Qaybta saddexaad waxay noqon doontaa qayb aad iyo aad u xasaasiya, waxaana ay tahay qayb su'aalo u badan. Haddaba daawade inala soco oo inala joog, lana wadaag muuqaalka saaxiibadaada si uu u gaaro dad badan.